afar saac gudahood baan madaxweyne kaaga warsugaynaa hadii wixii inta ka dambeeya wixii ka dhaca adiga iyo reerkaaga ayaa mas'uul ka noqon doona jaanaguna ciidankayga soo diyaarsan doona halka wixii ka yimaada mas'uuliyadda iga qaadi doona nimanka jiida ka soo cararaya ragaagina jiida la geeyay madaxweyne waxa tir annagana ragaaga halkana galaan oo had dhulka boobaan inaad maxay hayday arinka reerkiina waliba nimanka isku dhowdihiina inaad naga qabato هو كي دافعي دولة مصبيح هي دولة مسؤولة أما أمنية الدلقة كوكيل كهو qoyska reer Muuse Cabdille oo shir jiraayad ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay in loo kala xadeeyay beer ay ku leeyihiin buurta kala jeexan magaalada Hargeysa qoyska reer Xaaji Jaamac waxaana intaas ay ku dareen inay ku haystaan qoyska ka soo jeeda deegaanka uu ka soo jeedo madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxaana cod dheer ay ku sheegeen inuu arintaas wax ka qabto madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi qoyskan oo hadalkooda si wata ayaa waxay eeda ka difaaceen Suldaan Sabayste oo kamid ah madax dhaqameedka Soomaaliland waxaana ay sheegeen in lagu la kacay hadal aanu geyn Suldaan Sabayste oo kala dambeeyay ay u dambeysay tan qolada hartiga ama jeertaga sheegan reer Jaamac muddo dacwadan socotay muddadii kadib maxkamaddu waxay soo saartay kala xadeyn wala kala xadeeyay wala calaamadiyay way taageen markii la calaamadinayay waxaan ku niri ka diyaar garow kuma dhaqaaqeen waxay soo kordhisatay sandaqado iyo ciidan hubaysan oo koofiyada casiya direys tuutaa soo xidhay waxa la xanoon lagu ognahay ma jiro oo meesha ku leedahay annaga waa la yaqaan beerteedu maday lahayd beerta hartigan umadaha wala wada lahayn iyadoo hartigii maaha meel dhaxay ka soo baxday iyadoo ciidan wadata oo qaar ay walaalihiin iyo qaar qoyskooda halkaana waxay fadaxad ka fadaxadinaysay Suldaan Mawlid Cali Sabayste oo aan shaqo ku lahayn mawlidna dhulka waxba kuma laha beerna kuma laha hadalka ka soo baxay gabadhaas waa gef ay u geysatay suldaanka wuxuu ka dhaxeeyaa beesha Sacad Muuse hadday leedahay quwa isku qoro taasiyada u taala iyaga buu hadlayay oo waa kii daafacay dawladda Musabbix suldaankana way ku geftay xaal baa laga doonayaa iyada iyo beeshoodaba hadday awood sheeganayaan ay leeyihiin madaxda dawladnimadan haysana ay dawladdu waxba ka qaban weydo waxaan u ogeysiinahay hay'adaha nabadgelyada haddii meesha wax laga qaban waayo anaguna ciidanka ay keenan ciidankiisanu keeni doonaa halka mushkilad baa ka dhici doonta waan ogeysiinataa dawladda beeshaasina beesha waa reer Samatar awood bay sheeganaysaa jaanaguna ciidankayga soo diyaarsan doona halka wixii ka yimaada mas'uuliyadda iga qaadi doona waxa weeyaan madaxweyne waxaanu kaaga cabanaynaa reerkiina oo waliba qoyskiina ayaa baadil nagu haysta waxay soo xidhan koofiyada cascas iyo tuute xagee ka keenay warshada Sabaystee baa ciidana ma aha mid iyo laba ciidanka inta kale waa loo soo geliyaa dhar halkan waxaan ka cadeynayaa oo reerkii beerta lahaa waxaan halkan ka cadeynayaa oo maxay dawladda sharafta ka codsanaynaa inuu naga qaado ciidankana dul degan cid maanaan boobin cid maanaan xadin suldaankayga baa la fadeexadeynaya maxaa suldaan meesha keenay suldaan inuu reer yahay haa suldaanku sibeer wala wadamo suldaanu yahay laakiin waxa cadeeyeen wuxuu qabanayo dadku doodayay maxay u halgamayay waxay cadeysay inuu suldaan yahay reer suldaanku waa suldaankayagi waa reerkayga ma diidan alxamdulillah ilaahay baa nooga dhigay laakiin waxaan cadeynayaa naagtan dhaqdhaqaysa media inta keentay la sad dhul baan naga dumiyay fulin baan haysanaa anagu reerkan meel ay horta ka soo degan ma garanayno reerkan reer Samatar waa reer Samatara waa reer madaxweyne isku raasiin waliba waxaan codsanaynaa oo aan laga raro waayo fulin baan haysanaa oo nooga fuliyay ilmo Xaaji Jaamac oo beerta artiga anagu beerta uman waligeysarna dhulkaanu 27kii aanu lahayn ee intaas dhulku deganeen aanu ku dhalanay maanta in la yiraahdo maxay reer Samatar markuu madaxweynaha xilkii qabtay anaga lahayn dhulkay dacwadna la galan xaq nooguma la sandaqada la naga dhisay deer baa la sameeyay wixii oo dhan fulinteed baa noo sameeyay beertana la kala fuliyna waa beerta warsan gali ilmo Xaaji Jaamac baa noo fuliyay fulinteed baan haysanaa waxayagii oo dhan baan haysanaa maanta markii fulinteed la sameeyay dibna loo sameeyay military noo soo xidhan dariskii militariga nimanka jiida ka soo cararaya ragaagina jiida la geeyay madaxweyne waxa tir annagana ragaaga halkana galaan oo had dhulka boobaan
annagoo maati iyo caruur iyo agoon iyo cid walba leh oo rag jilicsan wada yihiin ma maanta inta idin fayoobay markaad fulinta geysay ma xadiri annaguna waxaan gelayaa in adigna dhulka ii soo dhacbaa tiri madaxweyne waxaan ka codsanaynaa in laga raray reerkan oo fulinteeda iyo dawladda sharafta leh iyo madaxweyne maxaa gudoomiyaha maxkamadda sare fulinteeda waxaan leenahay shaqayso meesha waxaan arkaynaa inay dawladda markaa reer noqonayso oo reer la iskooda imanayo annagu maanan tol waayin maanan ciidan waayin oo furinta kama soo kaxaysan waayin laakiin waxaan eegaynaa dawladda sharafta labaano maxay ciiseynayna oo fulinayna kuma gacanteeda kuma fushan garan waayin shalay bay celiyeen ay dhiseen jingadii la dumiye caqabto martay caruur iyo dad baan naga dumiyo ma dumar roogana jir cidna maanan cid wax laga dumiyo dumar oo laga kixay ma jirto oo rama laga kireeyay waana la wadooga wala cadaan wala wadoogay dhulka orabada laga kireeyay inta ku soo dulbaadsadeen maxay dhulka ay galeen orabada keenin beereen maati caruur baan laga kixay madaxweyne waxba kama jiraan ciidan soo yaacana ma jiraan ciidankan tuutaana noo soo galiyay madaxweyne waxaan dawladda sharafta ka codsanaynaa in ciidankan la naga qaado madaxweynaha maxaa la suldaankaaguna uu bari ka yahay annagoo ilmo Muuse Cabdillah ayaa leh oo dhulka leh oo ku dhalanay Muuse Cabdillah waxaan halkan ka cadeynaynaa in reerka maxay hayday degan maxay hayday reerka aanan wax shaqo isku lahayn reerka reer Samatar madaxweynaha waliba jufadiisa waxaanu leenahay madaxweyne reerkaasi tuuta iyo dirays iyo waxay ku faanayaan maxay hayday madaxweynihii baan leenahay waxaan ku cadeynaynaa madaxweyne inaad reerka naga qabato haddii kale maxay hayday way sheekadu way xumaan doontaayo waxa weeye dadku way isku dhawaayeen waxay noqon doontaa Saacad Muuse iyo waxay noqon doontaa reer Samatar iyo Cabdillah Saacad bay sheekadu noqon doontaa haddii arrinkaad waxba ka qaban weydo tuuta maalin walba la soo xidhnay BKM baa la fadhiya halkan anagu laftaydu ciidan baan nahay haddana mar walba waxaanu doonaynaa waxa weeye sharafta waxa weeye ciidanka in la ilaaliyo rag badan oo aan halkan magacyadooda ka sheegi doono oo halka fadhiista habeen walba oo BKM ka soo qaadaya ciidamada oo halka intii soo wada kaxeeyaan oranaya maxay hayday waxa tiraahdaan ciidankii qaranka nahay dhulkaygii weeyaan waxaanu leenahay madaxweyne ka codsanaynaa inaad maxay hayday arrinka reerkiina waliba nimanka isku dhowdihiina inaad naga qabato haddii kale arinku wuxuu noqon doonaa laba reer annaguna waanu soo diyaar garoobi oo maxay hayday waxa ayagaanu soo qaadan waxa kaloon cadeynaya maalintii dhaweed qoladii halka ka hadlaysay in dad Oromaa sanadqadooda halka maalintii dhaweed cagafta fulintu sameysay imika halka waxaan ku hayaa oo fulintiina loo sameeyay annagoo ilmo Muuse Cabdillah looga filmay Xiisa Jaamac waa taa waa fulintii ay fulisay dawladda hoose waa fulintii fulisay maxkamadda sare waa fulintii fuliyeen bileysku waa dhammaan waa loo dhamaayo waa wax sharciya fulintaasoo loo sameeyay in lagu marmarsoodo maxay hayday suldaanba halka maxayay waa sharaf suldaankuna subeer walaal dhanbu suldaan ayuu yahay marka waxaan cadeynayaa madax suldaanku inaanu halka wax ku lahayn oo taas aan macquul ahayn laakiin waxaan idin sheegayaa in boobkaasi in dadka boobka halka lagu haya ee waliba jufadiina aan naga qabato niman badan oo saraakiila ayaan halka ku haya magacyadooda oo maxay hayday waan sheegi karnaa halkaasi ku qoran yihiin waa nimanka kowga ee ciidamada halka soo hubeynaya media laga sheegay anagu ka xishoonaynay inaanu ciidankayga qaranka faraha la galno wax ka sheegno mar hadda iyagu laakiin sheegan inoo cadeeyeen inay noo soo kaxaysteen waxaan ka codsanaa dawladda sharafta iyo karaamada aanu hayno ee qarankayaga aanu harsanaa in ciidankeeda naga kaxaysato ciidanka looma samaysan in beeraha lagu dhaco dadka maatada lagu boobo waxa loo sameeyay in qaranka lagu difaaco madaxweyne inta qaran baan difaacayaa leedahay gudaheena ka bilaabmaysa hadaad naga qabsan weydo reerkaaga dibna isu baryimayno xaqiiqadana waynu istaabsiin waxaanu 4 saac gudahood baan madaxweyne kaaga warsugaynaa hadii wixii inta ka dambeeya wixii ka dhaca adiga iyo reerkaaga ayaa mas'uul ka noqon doona annaga saraakiishaada iyo ciidanka qaranku suuqaya soo raaci maayaan suldaanka iyaguna sidaanaan anagu ugu eedeyneen adiga inuu kaafaanayaan oo ninka RRU deesteen ugu faanayeen leeyihiin sidaanaan ugu eedeyneen inaan ku odhanin adag dabada ka wada mas'uulka ayaan suldaanka iyaguna anaga raalli nooga lahayn rabsho sameeyno oo dambi iyo qaran dumis mas'uul uga noqonaya amaan daro suldaanka iyagana faraha laga qaado suldaanka iyagi maaha waa suldaankii Subeerawal waa kii Soomaaliland waa kii madaxweyne adiga ku difaacay tolka maalinta adiga cagaha lagaga dhagan yahay waxay fiido ku soo fadhiistaan dhulkay ka qaadayeen kugu haysteen ku soo fuulaan suldaanka iyagu maalinta kala qabashada bulshada u soo dhaxgala hawshana
waxay u soo fadhiisan waxaan suldaan sabaysa hawsha ku jira ammaankoodu u yimid meesha annagu gacmaha nahayaa laga bilaabo saacada haddaad wax ka qaban weydo faruhu ka qaadaya hawshaas oo dhan adaana mas'uulka noqon doona laba reerna way noqon doontaa dakii roonin reerkooda xaqeeni tagiyo qofkii lahaa baa ku hadh meesha anigoo maxamed muuse cabdillaah daadayna boqol kor dhaaftay halkaas intaasoo sanadood baan dhaalay deegaanka iyo magaaladuna ka markhaati tahay weliba waxaan ogeysiinayaa inuu madaxweynuhu laftiisu ogyahay inuu beerta leedahay balse waxaa la yaab leh waxaanay maanta la yimaadeen nimankan direysiisa taranada seeganaya meesha soo dhexdegay gole ciidanka lahaa waa arrintayga yaabisay boqol jir baan ahay qaar iga sii weyn oo jiifaa jira oo xanuunsanaya oo ka cela qaar jaban baa jira oo jiifoo dhulka yaalla haddaba waxaan leeyahay hay-adda nabadsuginta ama amniga dalka ka wakiilka ahow ee gacantiina fulinteedii ku fuliyey waxa maanta nin direysitaa u baabiinayo taasaan leeyahay madaxweynahana waxaan leeyahay waa reerkiinnii horena meesha way iska digeyni sibay ku digeyna garan mayno annaga ciise saamaa ninka la yidhaahdee arti ayaa beerta isu haysanay intaasoo sannadood intaas ilaa 96 ilaa maanta kol boqolun baana sheeganayso annaga beerta artiga cidla aani jirin lanoogu soo marmarsoonayo iyo midda labaad oo suldaankii lagu fadaxadaynayo oo kolba leeyahay suldaan sidaan gidaarada laga caayo meel walba laga caayo taasina waa arrin la yaab leh inuu uguba inuu weligeen maqal wuu horeeyay markaa reerkan hadduu cadaysanayo ragba waa rageed waanu leenahay diriis iyo wax walba oo naayna haddii wax laga qaban waayo meesha ka dhaca macmil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega iidahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmil booqo xarumaha somtel ama dahabshiid si aad u hesho simikaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadala maasha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom macmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarle ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba macmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121